aad baan idin salaamayaa khiyaarta sharafta leh ee ku xiran channelka runta u kaalay waa Bashiir Muuse oo idinla soo dhawaada mar kale. Saad ila socotaanba waxaynu ku jiray casharka sideedaad oo ku saabsan xadka ridada iyo shariicada islaamka. Marka waxaynu ka soo hadalnay ilaa 3 cashir hadda ka hor, kaas oo ah 2 cashir oo ku saabsan ra'yiga fuqahada ama culimada islaamku arrinta waxay ka qabaan, iyadoo aynu soo sheegnay in intooda badan ay dhaheen qofka 3 maalmood ha loo qabto ha la dilo hadduu soo laaban waayo, rag iyo dumar midku doonaba ha noqdee. qaybta labaadna waxaanu kaga hadalnay 2 qaybood oo cashirkaas waa qayb saddexaadna waxaanu kaga hadalnay qofka la qasbo ama waxa loo yaqaano al-mukrih, qofka la qasbo ee xorriyadda laga qaado waxa uu sameeyo miyaa loo haystaa. marka shariicada islaamka culimada dhan waxay isku waafaqeen qofka mukrihka ah inaan waxba loo haysanin oo wixii lagu qasbo aan waxba laga soo qaadaynin, laakiin waxay qabaan murtadku inuusan xaqa ka faa'iideysan karin oo lagu qasbo inuu islaamo haddii kale la dilayo. marka taas oo arrin aad khatar u ah oo magaranaysa beeraysa muslim fake ah in lagu hayo masaajidka dhexdiisa ama munaafiq in masaajidka dhexdiisa lagu hayo, maadaama qofkii seef raqabada laga hayo ama kurka laga hayo oo uusan qofku doorasho lahayn in magaranaysa ay sida xaaladiisu noqonayso. marka waxaan isweydiiyey haddii muslimkii la yidhi waxa lagu qasbo looma haysto, murtadka maxaa xaqa loo siin waayo oo isaguna hadduu kristan yahay iyo hadduu diin laawe yahay iyo hadduu yahuudi yahay ama majuusi yahay ama hinduusi yahay maxaa loogu ogolaan waayo? maxaa qof feeg ah oo la qasbayo iimaankiisa shariicada islaamka u aqoonsanaysa oo leedahay waa muslim? marka arrintaas aad baynu uga soo hadalnay. maanta waxaan jecelahay bal cashirka inaan kusoo gabagabeeyo sharciga caalamiga ee xuquuqda bini aadanka, waxa loo yaqaano Geneva Convention ama heshiiskii xuquuqda bini aadanka ee Geneva. marka saynu la socono dagaalkii labaad ee adduunka markuu dhamaaday 48 wuxuu dhamaaday 45 marka 3 sano kadib markuu dagaalku dhamaaday baa waxaa la sameeyay hay'adaha qaramada midoobay, kuwaas oo ah golaha ammaanka, jamciyadda quruumaha ka dhaxaysa ama jamciyadda cumuumiya waxa loo yaqaano, iyo hay'adaha kale ee hoos yimaada hay'adahaas oo hay'adahan gargaarka faraha badan ay ku jiraan. marka markii dagaalkii laga soo noqday oo magaranaysa dalalkii dagaalamay ay heshiiyeen ama laga adkaaday, adduunyada in dib loo habeeyo dib loo qaabeeyo ayay kaliftay. marka xuquuqda bini aadanka sharciyada ku saabsan ayaa la dejiyey. marka sharciyada waxaa loo bixiyey Geneva Convention. marka waxaa ku jira xaqa qofka, xuquuqda qofka bini aadanku leeyahay oo dhan ayaa ku jirta, xaqa nolosha, xaqa ilaalinta, xaqa uu qofku u leeyahay caqiidada iyo diinta uu doono inuu qaato. marka waxaan jecelahay labada maado ee khusaysa caqiidada qofka, xaqa uu qofka u leeyahay diinta uu doono inuu qaato ama uu diin laawan noqdo uusan diinba qaadanin, ayaynu maanta qaadaa dhigayna. marka waa labada maado, maadada 18 iyo maadada 19 heshiiska caalamiga ah ee xuquuqda dawladaha dhan way wada saxiixeen dhammaantood, kuwa muslimka iyo kuwa aan muslimka ahaynba. marka cid kasta sharcigaas uu qabanayaa maxaa loo yaqaano Geneva Convention. bal marka aynu akhrino al-ahd ad-dawli al-khaas bil-huquuq al-madaniyya was-siyaasiyya ayaa loogu magac daray heshiiska magaranaysa heshiiska dawliga ah, mucaahadada dawliga ah. mucaahada waxa weeyaan waa waxay dawladaha dhan ay saxiixeen. marka waxa jira waxa la yiraahdo qaanuun ad-dawli. marka 2 qaybood buu leeyahay, qaanuun ad-dawli caam iyo qaanuun ad-dawli al-khaas. qaanuunka dawliga ah ee caamka ah iyo qaanuunka dawliga ah ee khaaska ah ayaa la yiri. marka qaanuunka dawliga ah ee caamka ah waa ka shaqeeya dawladaha iyo xiriirka dawladaha iyo xiriirka diblomaasiyadda, safaaradaha iyo diblomaasiyiinta, heshiisyada ay dawladuhu wada galaan, waxaasoo dhan ayuu qabanaya. wuxuu qabanayaa badaha iyo xuduudaha dawliga ah, hadday bad tahay, hadday bari tahay iyo hadday dhul tahay, intaaba waxaa ku shaqale qaanuunka dawliga ah ee caamka ah. ma garanaysaa? marka qaanuun dawli khaas baa jira oo dadka khuseeya. 2 qof oo 2 jinsiyadood hadday isguursadaan qaanuunkee ayay isku xukumayaan. haddii qof Soomaali iyo qof Ingiriis ay isguursadaan ay wadanka Australia isku guursadaan, sharcigay hoos tagayaan wadanka sharciga Soomaaliya marka Ingiriiska marka Australia. marka qaanuunka dawliga ah ee khaaska ah ayaa arrinta ku shaqale. xuquuqda mulkiyadda waxa loo yaqaan guryaha ay leeyihiin dad yow kala duwan oo kala jinsiyada ah. marka qaanuunka dawliga ee caamka ah يعني ku fogaanina qaybta ku saabsan xuquuqda
shakhsiga uu leeyahay ee madaniga ah ee siyaasiga ah ee diiniga ah ayaanu ka hadlaynaa maanta marka maadada 18 waxay leedahay likulli insaanin xaq fi xorriyati alfikri walwijdaan waddiin qodobka koobaad waa maadada 18 qodobkeeda koobaad qof kasta wuxuu xaq u leeyahay oon la taaban karin xaq muqaddasa weeye oon laga qaadi karin sinaba aan looga qaadi karin fi xorriyati alfikri walwijdaan waddiin in uu si xor ah u fikiro si diinta uu doonana uu doorto fi xorriyati alfikri walwijdaan wijdaanka waxaa la dhahaa dareenkiisa caatifiga qofku waxa uu jecel yahay waa in la xurmeeyo waxa uu jecel yahay waxa uu ku fikirayo waxa uu jecel yahay iyo waxa uu aaminayo weeye haddaan af Soomaali kugu dhigo saddexdaa weeye waxa qofku aaminayo fikirkiisa uu aaminsan yahay iyo dareenkiisa caatifiga iyo diinta uu aaminayo ama uu ku dhaqmayo waa in la xurmeeyo waa lama taabtaan dawladaha oo dhan baa isku waafaqay diintay doonaan ba ha haystaan marka ويشمل ذلك لي marka arintaas waxay koobsanaysaa oo sharaxaadeedu waxay noqonaysaa xorriyatuhu fi an yadiina bidiinin ma qofku inuu diintu doono doorto an yadiin bidiinin ma diintu doono inuu doorto qofku وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره قفك إنه دورته دينته أو دونه يا عقيدته أو دونه السجى يطالع عد أحدين يسي عد أشياء يسمى منه مشرته حقا قفك لقى ما قاعد كرو وحريته هذا قفك حرية في إظهار دينه ومعتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسات والتعليم بمفرده أو مع جماعة وأمام الملأ أو على حدة وحي قفك مركع وحق ليه هي قفك دينتو دونه وحويان جنسيته دونه يا ودنكو دونه هكا سو jeeday inuu doorto diintiisa iyo aqeedadiisa oo umaliba wuxuu xor u yahay waliba inuu sameeyo ya wa iqaamata sha'air wal mumarasaat inuu sameeyo oo dadka hortooda ku sameeyo isaga oo keligii ay isagoo dad kale ay la jiraanba ya fi jamaa aw amaam al mala aw ala hada macnaheedu maxay wadada ayuu ku tukan karaa qofku isgoysyada meelaha meel arkayo dadku arkayaan ayuu qofku diintiisa ku ilaahay ku caabudi karaa oo sha'air diiniga ku sameyn karaa tusaale ahaan qofka muslimku dukaanka hortiisa ayuu intuu sijaayad dhigto tukan karaa wadanku doono maanta ma cid qabsanaysa jira qaar waxaan arkay wadooyinka sijaayad dhiganayo oo baabuurta gooyay oo traafikada gooyay baan arkay oo boolisku ay dadka ka celinayaan dadka aad uga careysiiyay oo axmaqnimo ka buuxdo ya iyagoo xawayaan dalalka gaalada ayaan diinteena tusaynaa iyagoo leh oo wadooyin waaweyn oo highway ah iyagoo gooyay oo halka ku magaranaysa boolisku uu dadka ka ilaalinayo oo dadka ay ku careysan yihiin oo qof walba doonaya inuu gacan qaado ayaan ku arkay social media YouTube-ka marka يعني سدا ما هو حوالي سحر ملأ أون ضدك كلا دبينين ويان سحر ملأ أون ضدك كلا دبينين أون مصالح العامة أن دبينين أون ودوين كجوينين قفوا إنه دين تو أمسين هاي وكل عبادة استوى شعائر تيدا وسمعيه معناه ما حمل وكل عبادة استوى إنه الله سمعيه وكل كده هدايت هاي مسجد هدايت هاي كنيسة هدايت هاي سنغوغ هدايت هاي معبد هندوسة أما واحد دون تبقى شيء مركا قفكو wuxuu xaq u leeyahay inuu diinta uu doono iyo aqeedada uu doono uu doorto wuxuu xaq u leeyahay inuu sameeyo waxa uu aaminay iyo diinta uu doortay inuu ku caabudo meel public ah oo la arkayo oo cidna u diidi karin isaga oo kali ah iyo isaga oo ay group kale isaga oo jamaaca ay la jiraan oo dad badan yihiin intaba marka qodobka koobaad maadada xuquuqul insaanka sharci xeerka xuquuqul insaanka Geneva qodobkeeda koobaad sidaas ayuu u hadlay qodobka labaad wuxuu leeyahay لا يجوز تعريض أحد لإكراهه لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته لما أقول ما تدري تبنات قضب كذا اللباد فقرة هذا اللباد وحيل هذا لا يجوز تعريض أحد للإكراه من شأنه أن يخل بحريته قفك لما قصب كرو قصب كان إن حرية لقى قاضو لما قصب كرو قصب كان إن حرية لقى قاضو محاسوه سجلس مركب قضب كان أيستوس إسقاه إيمانيان حير كشريعة الإسلام كمرتدك قانون كمرتدك أما مقرن عقوبة حد الردة واحد لو يقانون واحد توس إسقاه إيمانيان مادة اللباد مادة سديد طبنات قانون كهجيس كعالمي معاهدة الدولية لحقوق الإنسان قيبت فقرة هذا اللباد أي توس إسقاه إيمانيان وحيل هذا هي مادة دني لا يجوز تعريض أحد للإكراه من شأن أن يخل بحريته قفك هدو دين كبحه والسحر الدين وقبحه دين تيدون تبع النقطة
raqabada intii la soo qabto laguma qasbi karo inuu diinta ku sii jiro ama in ma garanaysaa la qasbo ama wax ma garanaysaa la ciqaabo oo dhibaato loo geysto oo xad ridda lagu fuliyo macnaheedu waa maxay xad ridda waxa loo yaqaan culimada inta islaamka inta badan ay isku raaceen wuxuu toos uga hor imanayaa maadada 18 ee sharciga ee heshiiska caalamiga ah ee xuquuqul insaanka qaybteeda labaad فاهمسا وكذا لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أي دين بالدين ما أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره قفك واي شرحات بلغسي بحي قضب كلابات فقرة اللابات قضب كستير تمناد وحالي قفك لغو ما قصب كارو إنو دين تودانو إنو دين قاتو يعني لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته قفك حرية لغما قادي كارو تاس أو كلفيسا إنو دين تودورتو كل رقم وايو أما عقيدة ودانو وقادن وايو لغما قصب كارو يعني waxa weyn cunf iyo xoog iyo maganaysa waxa loo yaqaan violence qasab iyo ikraah qofka lagu ma qasbi karo si uu maganaysa waxa uu aaminay uu maganaysa u dooran waayo ama uu sameyn waayo waan garto faqrada saddexaad maadada 18 faqrada saddexaad waxay leedahay la yajuzu ikhdaac hurriyat al-insan fi idhar diinihi aw mu'taqadihi إلا للقيود التي يفرضها القانون والتي تكون ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحريتهم الأساسية وهير سرويين واتهد أن كسو هالي ودوين كأولو قويا لغا هاليا يعني وحوين لا يجوز إخضاع حرية الإنسان في إظهار الدين قفك لغو مقص بكرو يعني إن أو مقرنا لا يجوز إخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده إلا للقيود حرية قفك أولي يهدين تأوضونه إنو آمنه أو كعباديستو لما حدا ينكرو لما يرى ينكرو وحويان لما فرق ينكرو إلا للقيود التي يفرضها القانون العام قانون كجود ضد كاس أما ضل كاس كشقية مويان عيد كلا أو تابن كرتو أو فرها لقل كرتو ما جرتو قانون كجودنا محولة والتي تكون ضرورية لحماية السلامة العامة وحويان قفكو قانونكم محو إلى لنا يا ترافيك iyo wadooyinka iyo eedabta iyo xushmada guud iyo isu socodka dadweynaha iyo ganacsiga dadweynaha iyo dareenka dadweynaha ayu qaanuunka xadiidinaya ya والتي تكون ضرورية لحماية السلامة العامة والنظام العام والصحة العامة والآداب العامة وحقوق الآخرين وحرياتهم marka xawayaan xuquuqdaada shakhsiga ah iyo xuriyadaada diiniga ah ee xeerku iyo sharcigu ku siiyay waxa weeyaan ما واحد كفرن سيدا ربتك كم يلي كرتيد وحا هبينيا أو حدينيا أو قاب كاد عبادة سن لهيدي قاب كاد دين تادا وقرق من لهيد وحا حدينيا أو يهوس منسا حيرك جود يا شرعي جود يا أخلاق جود يا إدابة جود يا نبتقلية جود يا حقوق ضدك كله معناه هذا ما هي حق ملي دين تادا طبعا هاي صو ودوين كأنها تجوسو مقرن ساتراهو ها صلاة بنتو كنيا سيدا كواحد شرينه مسلم قدام يوروب أي كوسا ميان كواحد شرينه وهابينا يجوا مكانه سا دون يعني مكانه سا دهان دين تيجا يعني تسرنا قالوا أو مكانه سا مركب حوين ودوين كإني جويان وضد هداد جويس حقوق دي دتك كلات كواحد جدبتي أو حوين عرورتي سكول كله ودي دمر كي مكانه سا ثلاثة لو ودي دتك دق دق هاي شقوين كدق دق كوي أمبلاسيات واحد كستاد جوين سا بولسكي طبدمسكي وضد هداد جويس حقوق دم بالونتي marka salaadaada salaad ma noqonayso cibaadadaasina cibaado ma noqonayso waxay noqonaysaa xad gudub ayay noqonaysaa waxa weeyaan qaanuunka guud iyo xuquuqda ay dadka kale leeyihiin baad meel kaga dhacday markaas marka maadada 18aad qaybteeda saddexaad waxay leedahay qofku wuxuu xaq u leeyahay diintiisa inuu ku cibaadeysto oo uu doorto oo si xor ah uu mumaarasadeeda u sameeyo laakiin waxa taa xadeynaya oo habeynaya qaanuunka guud iyo nabadgelyada guud iyo nidaamka guud iyo akhlaaqda guud iyo xuquuqda ay dadka kale u leeyihiin iyo xorriyadooda dadka kale meel kaga ma dhici kartid adoo ku faanayo oo oogaya oo diintaada ma garanaysaa ka faa'iideysanaya qaanuunka faqradiisa labaad dadka kale xorriyadooda iyo diintooda iyo akhlaaqdooda meel kaga ma dhici kartid waka meel kaga ma dhici kartid yani isma qaawin kartid ya waxa ku jirta akhlaaqda guud nabadgelyada guud nidaamka guud ee dadka ka dhaxeeya ha marka waxaweyaan nidaamkaas ayaa ku xadinaya marka waa inaad qof muwaatin shuruucda dalka u yaala u hoggaansama waa inaad noqoto ma fahmaysaa faqrada afraad
ولي waxaynu ku jiraa maadada 18 waxay leedahay تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام حرية الآباء أو الأوصياء عند وجودهم في تأمين تربية أولادهم دينيا وأخلاقيا وفقا لقناعتهم الخاصة. دولتها هشيس كان كل شيء ودولتها أردن دولتها قرمد مدة بقوليس ديتك الدولات أي وضع صحيح هشيس كان وحي بلن قاضيان تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد دولتها هشيس كان صحيحي وحي بلن قاضيان باحترام الآباء أو الأوصياء عند وجودهم في تأمين تربية أولادهم دينيا وأخلاقيا. آباياشا والدينتا أما دتك عروت مسؤولك كهي قعنت عروتك كهيا دائرتها في تأمين تربية أولادهم دينيا وأخلاقيا. إن عروتها كو تربيان دينتا أي هايستان ويان أولادهم دينيا وأخلاقيا. إن عروتها كو تربيان دينيا أو تربية الدينية الله بره iyo akhlaaqda la baro oo xushmada la baro oo runta iyo wanaaga iyo akhlaaqda iyo naxariista lagu tarbiyeeyo oo beenta iyo akhlaaq xumada iyo dambiga iyo rufnaan waxaas oo dhan laga caruurta waa in la tarbiyeeyo wafqan liqanaacatihim alkhaasa. waalidiintaas iyo awliyadaasi awsiyadaasi qaabka iyagu ay wax u arkaan weeye iyo caqiidadooda iyo diintooda wax qaab waafaqsan. macnaheedu waxa weeye qoyska masiixiga ah ama muslimka ama yahuudiga ama hinduusiga wuxuu xaq u leeyahay caruurtiisa diinta uu haysto iyo akhlaaqda uu aaminsan yahay inuu ku tarbiyeeyo wey. laakiin maanta sheekadii hadda way isbedeshay. waxaa soo baxday fidna aynan hadda shaqo ku lahayn oo hadda magaranaysaa aad iyo aad looga argagaxo. waxaad arkayay toddobaadkii hore maalintii geyga iyo lesbiyaanka maalin bay samaysteen dadkaasi ayaa waa loo dabaaldegayaa markaasaa New York xarunta qaramada midoobay dawladaha calankooda dhan ayaa calankii geega iyo lesbianka laga dhigay. Amerikana waxa ka dhacday meelo badan isteediyo badan waalidku inuu caruurta kala baxo iskuulada waayo waxa dhacdaa la yiri iskuuladii dawladda dadkaas geega iyo lesbianka waxa aaminsan iyagu waxay u arkaan waxan xuquuq iyo xorriyad bay u arkaan qofku labada jinsi in la isku daro oo ninka iyo naagtii la kala dhex darbigii u dhaxeeyay la kala qaado oo qofku xaggana u sii gudbi karo xaggana u sii gudbi karo. macnaheedu maxay qofka ninku naag noqon karaa naagtuna nin bay noqon kartaa ninku nin buu guursan karaa naagtu naag bay guursan kartaa waxa la wixii gender la oran jiro dhan baa meesha ka baxaya. musqulihii waa la isku darayaa oo rag iyo dumar wixii loo kala qaybin jiray ma jiraan. marka waxa la caruurta yar caruur yar 7 jir ah 8 jir ah ayaa waxa weeyaan waalidkood iyagoon ogeyn ayaa lagu qanciyay inuu wiil yahay iyadoo gabadha ama inay gabadh tahay isagoo wiil ah oo magaranaysaa qaliin lagu sameeyo operation lagu sameeyo oo magaranaysaa la bedelay jinsiga laga bedelay waalidkii ogeyn. marka waalidiin badan oo ooyaya oo cabanaya oo mudaharaadayaan Amerika ku arkay. marka waxa meel lagaga dhacay yani waaga 48kii baa la heshiiskan la saxay maantana waxayna maraynaa 2023. marka isbedel weyn baa adduunyada ku dhacay oo positive iyo negative baa. waxyaabaha negative ka waxa kamid xorriyadii in loo adeegsado qaabkan oo waalidkii laga qaado xuquuq. maxaan uga hadlayaa arrintan barnaamijka ma khusayse waxa maadadan waxay taabanaysaa xuquuqda waalidka ayaa maanta meesha ka baxay. meel kasta xaqi waalidka uu lahaa ilmihiisa inuu diinta u aaminsan yahay ku tarbiyeeyo maanta ma shaqeeyo. Yurub iyo Amerika waa la burburiyay dhaqankaas. marka wax aad iyo aad u xun oo la dhaleecayn weeyo oo dhaleecayn mudan in la dhaleeceeyo mudan. waalidka xaqiisu waa muqaddas. diin kastana waxay faraysaa waalidku inuu mas'uul ka yahay tarbiyada ilmihiisa iyo akhlaaq korinta ilmahooda. laakiin maanta Yurub iyo Amerika qoysaska jooga dhib weyn baa haysta. waxa weeyaan ilmihii ma tarbiyeyn karaan ma edbin karaan hadduu cuntada iska diido oo magaranaysaa wuxuu doono sameeyo. hadduu waalidku in yar soo fargeliyo wuxuu wacayaa 911 booliis baa markiiba imanayo waalidku waa la xidhayaa ilmihiisa inta laga qaada dad kale loo geynaya. sida hadda socialka Sweden dhibaatada ka haysata dadka ka haysata waalidka ka haysata qoysaska gaar ahaan muslimka carabta iyo Soomaalidu ay ka mid yihiin qoysas badan baa ilmihii laga qaatay. waayo waxay doonayaan qaabkan inay ilmahooda ku tarbiyayaan inay tarbiya diiniya ku tarbiyayaan oo tarbiya akhlaaqiya ilmuhu ku tarbiyayaan oo ilmuhu uu ilmo edeb leh waalidkii xurmeeyo noqdo. meesha waxaas ma jiraan aada way araan weeyaan ilmaha ka sareeyo waalidka ilmaha ka xuquuq badan waalidka. haddii cabasha ama dhib dhaco waalidka cid wax weydiinayso ma jirto. ilmaha markii la dhageysanayay meel cidla intii lala tagaa la oranaya maxay kugu sameeyay hooyada maxay kugu samaysay aabaha yani washaaya la dhahaa washaaya waalidkii baa la dacweynayaa. markaasaa caruurtii ay fasaadeen oo waxa weeyaan wax aynu shaqo ku leenahay maaha waxa meesha ka dhacay. يا marka waxa weeyaan adduunyada Allah u sahlo yaani ku fogaadin markaas. marka waalidku wuxuu xaq u leeyahay maadada 18aad faqradeeda afraad caruurta inuu ku tarbiyeeyo diinta uu haysto iyo akhlaaqda uu aaminsan yahay inuu ku tarbiyeeyo. kasoo maadada 19aad
oo aan doonay inaan cashar ku soo khatamo waxay leedahay maadada 19aad ee qaanuunka heshiiska caalamiga ee xuquuqda madaniga iyo siyaasiga ah faqradeeda koobaad waxay leedahay likulli insaan xaq fi i'tinaaq al-aaraa duuna mudaayaqa qof kasta wuxuu xaq u leeyahay fikirka uu doono inuu aamino isagoon dhibaato lagu haynin duuna mudaayaqa isagoo cidna ayna dhib ku haynin arrintaas oo ayna ka cabanaynin ya duuna mudaayaqa ayaa la yidhi likulli insaan xaq fi xuriyati tacbiir qof kasta wuxuu xaq u leeyahay inuu dareenkiisa cabiro laakiin waa si nabada wanaagsan inuu ku cabiro waxaan likulli insaan xaq fi tacbiir fi xuriyati tacbiir qofku waa inuu cabiro ra'yigiisa oo ay ku jirto waxa uu aaminsan yahay wayashmal hada alxaq waxa xaqaas uu koobsanaya soo hoosgelaya xuriyatu fi iltimaas mukhtalaf duruub almacluumaat inuu qofku macluumaadka meeshu doono ka raadiyo aqoonta inuu raadiyo wal afkaar fikradaha adduunka ka jira inuu raadiyo وتلقيها ونقلها إلى الآخرين إنه فكرتها iyo aqoonta qofku uu kasbado dadka kalena uu la wadaagi karo fidin karo دون اعتبار الحدود isagoo xad loo yeeleenin سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأي وسيلة أخرى يختارها qofku waa inuu fikirka uu aaminsan yahay iyo waxa uu inay munaasib tahay u arko uu bulshada la wadaagi karo oo sidoo doono ku soo bandhigi karo haday noqoto qaab qoraal ah ama qaab magaranaysaa media sida hadda kanaan idin la wadaagayo kala ama qaab kale oo fanni ah sida riwaayadaha iyo masraxiyaadka kale sidoo rabo inuu qofku ku soo bandhigi karo maadada laakiin waxaan arrintan waxaan arkay arrin la yaab leh hadda meelo badan ka dhacday quraanka la gubayo xuriyada tacbiir ma aha in quraanka la gubo ama bible-ka la gubo ama kutubta diiniga ah la gubo ama ambiyada la caayo waxay Europeanku waxay dhaheen way furan tahay baashu ya xaqan ayaa waxa weeyaan waxay dhaheen waxa weeyaan waxaan soo maray maadada 18aad faqradada 3aad in la yiri xaq uu qofku u leeyahay diinta uu doono iyo inuu sameeyo uu ku cibaadeysto waxa ilaalinaya oo xadeynaya sharciga wadanka u yaala qaanuunka guud iyo nabadda guud iyo akhlaaqda guud iyo edebta guud waxaas oo dhan way ka saareenoo waxa la yiri ha qofku wuxuu xaq u leeyahay likulli insaan alxaq fi xuriyati tacbiir qofku ra'yigiisa waa inuu gudbiyo marka qaar baa waxay dhaheen anigu waxaan aaminsanahay quraanku inuu yahay kitaab xun oo waa inaan gubo waa xaq hala ilaaliyo sharciga ilaalinaya dhaheen ya waxa meesha ka baxaysa oo toos qofkaasi xaqaasi wuxuu toos uga hor imanaya oo toos u dakhrayaa xaqa ay u leeyihiin 1,500,000 oo kun oo 1,500,000,000 oo muslimiin ah dareenkooda iyo xorriyadooda ayuu dhaawacaya ninkan nin waxa jira Danish Denmark ah Danish oo Swedish na oo xajir oo ma garanaysaa sanad kasta quraanku gubaa wadanka Sweden maalin maxkamad baa la isla tagay maxkamad waxay tiri xaqaas waa in la ilaaliyo boolisku waa inay ilaaliyaan ninkaas iyo xorriyadiisa quraanka waa inuu gubo muslimiintii wadankaasina waxay dhaheen iyo adduunka oo dhan war quraanka anaga aaminsanayaan laga gubin marka waa wareer waxa weeyaan qofku wuxuu xaq u leeyahay in waxa uu aaminsan yahay loo ilaaliyo oo diintiisa iyo dareenkiisa la ilaaliyo qofku xuriyada tacbiir ma aha inaad dad kale aad ka xanaajiso dad kale aad xuquuqdooda meel kaga dhacdo dad kale diintooda aad caydo oo dad kale aad dareenkooda kiciso marka dad badan baa ku dhintay wadanka Sweden oo waxa weeyaan dad boolis baa la dilay boqolaal baabuur baa la gubay malaayiin dollar hanti ahaa yaa dab la qabadsiiyay waxa dhacay khasaare aad weyn iyo dhimasho ayaa dhacay dhiig baa daatay xuriyad baa marka waxaas xuriyad ma aha waa edeb darro waxaan la yaabay arrintaas waxay dawladda Sweden wax uga qaban lahayd marka xaq xuriyada qofku tacbiirkii uu xaq u leeyahay inuu dareenkiisa cabiro ma aha inuu dadka kale caayo oo dadka kale xuquuqdooda meel kaga dhaco diimaha caayo oo kutubta muqaddasaadka la gubo oo ambiyada la caayo ma aha xuriyad ma waxaas waa akhlaaq xumo iyo edeb darro weeyaan marka dadkuna waa inay iska qabtaan haday waxa arkaan xaq bay u leeyihiin qofku inuu isdifaaco oo dareenkiisa uu difaaco wuxuu aaminsan yahay uu difaacdo xaq buu leeyahay isagoon dhibaato kala geysan ama aan dad kala dilaynin waan garta marka waa sidaa labada maado ayaan doonayay maanta inaan idin la wadaago sida meesha ku cad sharciyada islaamka gaar ahaan fiqiga sunniga ah intiisa badan waxay qabaan qofku hadduu diinta islaamka ka baxo rag iyo dumar midku doonaba ha ahaadee in lagu qasbo inuu diinta islaamka ku jiro
taasina waa waxa weeyaan wax la aqbali kara maaha qofku hadduuba diinta ka baxay diinta shaqo kuma laha waxaan loo yaqaano almurtad ama apostate afka ingiriisiga loo yaqaano waa qof diintii uu aaminsanaa ama ha ku dhasho waalidkii ha ka dhaxalo ama ha soo galee ka soo istaagay oo yidhi no ma anigu maanta laga bilaabo diinta shaqo kuma lihi qofkaasi waxa weeyaan waa in xorriyadiisa iyo waxa uu aaminaya loo ogolaado diin uu ka baxay oo uusan aaminsanayn in lagu qasbo waa xadgudub weeyaan waa xadgudub marka waxa weeyaan xuquuqdii bini aadamnimo iyo xaqii uu qofka u lahaa inuu si xore waxa uu aaminsan yahay u doorto ayaa meel lagaga dhacaya marka waxa weeyaan maadada heshiiska caalamiga ah ee xuquuqda bini aadanka qaybtiisa madaniga ah iyo siyaasiga ah faqradiisa saddexaad waxay toos u isu waafaqayaan aayadda albaqra laa ikraha fi diini qad tabayana rushdu min alqayib diintu qasab ma aha qofkuna wuu dooran karaa gaalnimo iyo islaam miduu doono ama hanuun iyo baatilnimo midda uu doono way iswaafaqeen marka waxaa anigu aanu arkaa inay xadgudub tahay oon la aqbali karin qof diintii ka baxay diintu doono ha noqdee qofku kristan buu noqon karaa kristanka qofka kristan hadduu intuu kiniisadda iskaga baxo waxaan arkay wadaad baastar ah oo south africa may ahayd oo kiniisaddii dhannayd islaamiyey oo tawxiidka u qabtay waa waddan kristan u badan weeyaan south africa saad ula socotaan kiniisad dhan oo 100 qof ka badan isagii baa islaamay wadaad wuxuu ahaa waxaan filayaa angelican oo wuxuu leeyahay angelicanku uniformkiisa iyo crosskiisa baa u xidhnaa isagii baa islaamay congregationkii dhannaana wuu islaamiyey cid qori tuurtay ma jirto marka muslimiinta waxaa loo baahan yahay gobonnimo inay muujiyaan oo ilbaxnimo muujiyaan waxa weeyaan diintay doonta ha noqotee doorashada qofka waa inay ku timaado haddii kale wax la isku qasbay diin ma noqoto ilaahay agtiisa iyo dadka agtiisa wax la isku qasbay wax sharaf uu leeyahay ma jirto qof la qasbay oo madaxa seef lagaga hayo oo diinta islaamka ka baxay masaajidka in lagu hayo wax xigmadahoo ku jirta meesha ma jirto haba yaraatee qofku waa inuu laa ikraha fi diini diinta islaamka waa in laga bixi karo waana in la soo geli karo inta aaminsanna way ku jiri karaan ninkii aan aaminsanayna waa inuu iska tago ilaahay baa u qabsan aakharo hadduu doono cadaabi ya man waynagii soo maray hadduu doono wuu cadaabi ilaahay aakharu ku cadaabi sida qur-aanku leeyahay marka aakharaaba la cadaabahayaa maxaad ugu dhigan tahay markaa sida qur-aanku leeyahay ya man kafara billaahi bacda iimaanihi ilaa man ukriha qalbuhu mutma'inun baynu soo maray qofkii gaaladnimada doorta ee yidhaha anigu cadaabkaa baan u socdaa maxaad ugu dhigan tahay adigu ood seefta ula daba ordaysaa arrimaha in laga fikiro la isweydiiyo weeyaan diinta islaamku waxa weeyaan si khaldan in loo macneeyo aayadaha qur-aanka ma aha sunnada iyo qur-aankana qur-aanka xoog badan laa ikraha fi diini xadiis la barbar dhigi karaa ma jirto diinta islaamka waa in lagu daayaa laa ikraha fi diini qad tabayyana rushdu min alghayy anigu saasaan aaminsanahay diinta islaamka ama aan aamino ama yaana aaminsanayn laakiin xaqiiqada waxa weeyaan waxay ku macaan tahay laa ikraha fi diini qad tabayyana rushdu min alghayy xurriyat alcaqiida wa xurriyat alikhtiyaar haddii shalay anoo buudi ah ama kristana ama yahuudi ah aan xor ku soo galay oo intaan masaajidka soo galay aan ashahatoon muslim noqday xorriyaddaas laygama qaadi karo berri haddaan ka shakiyo diinta islaamka oo igu socon weydo sidaan anoo xora u soo galay anoo xora waa inaan uga bixi karo cashirka maanta halkaasaan ku joojinayaa sidaas iyo isla socod wanaagsan